ciidamada ilaalada badda Puntland iyo laamaha ammaanka gobolka Bari oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa gacanta ku soo dhigay hub iyo agabka laga sameeyo walxaaq qarxa kadib howlgal ay ka sameeyeen degmada Qandala oo ka tirsan gobolka Bari. hubka ay ciidamadu gacanta ku soo dhigeen ayaa ka koobnaa RPG7 bambooyinka gacanta laga tuuro filooyinka waxa lagu qarxiyo iyo hub kale. maamulka gobolka Bari iyo laamaha amniga dawladda Puntland ayaa xalay saxaafadda ugu soo bandhigay hubka iyo walxa ay gacanta ku soo dhigeen dekada weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan oo warfidiyeenada kula hadlay dekada Boosaaso ayaa faahfaahin ka bixiyay hanaanka u dhacay howlgalkaasi. waxaanu warka helay maalintii shalay 17 ahayd arbacadii xilli habeenimo ah waxaana la soo xiriiray maamulka degmada Qandala waxa ay noo soo gudbiyeen iyagoo isu dhan maca qaybaha amniga taliyaha saldhigga gudoomiyaha iyo raggiisa oo dhan waxa ay noo soo gudbiyeen in ay jirto hub ka kooban walxaha qarxa iyo madaafiic ka kooban in magaalada Qandala meel dhowr kiiloomitir u jirta oo la yiraahdo Qooriga in ay halkaa ku arkeen hubka waxa ay sheegeen in hubkaasi ay keentay doon fabric glass ah oo doon weyn ah nimankii hubka waday oo doonta wadayna ay ahaayeen niman ajnabi ah waxaana ogaaday oo markii hore ku soo gudbiyay maamulka degmada degmada Qandala Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo taliyaha ciidamada ilaalada badda Puntland wuxuu qayb ka saraakiishii la hadlay warfidiyeenada. halkaas hawshaas waxa qaybtii ugu muhiimsanayd ka qaatay runtii aan oran karaa ciidamada deegaanka sida booliska iyo maamulka degmada kadib markii arrinta ay xaqiijiyeenna waxa arrinka loo soo gudbiyay xarunta gobolka gudoomiyaha gobolka arrintaasna waxa gacantii ugu muhiimsan hadda ka geystay gudoomiyaha gobolka oo hawlgalkaas runtii lagu hogaaminayay. ma jiraan warar xaqiijinaya goobta hubka loo waday iyo halka laga keenay hase yeeshee laamaha amniga dawladda Puntland waxay warfidiyeenada u sheegeen inay wadaan baaritaan ay ku doonayaan inay ku ogaadaan arrimahaasi. Cabdiqani Cabdullaahi Cabdi telefishinka caalamiga ee Royal Boosaaso.